وحمالين بمالين تكتم بيسا سوترا يا عبشدا عيدوينها خير وجهه كموشيديا نظافه حما سو وجهدي كوانka lagu qalo xoolaha magaaladaasi Togwajale waxaana dadweynaha sheegeen inay waqtiyada qaar kood uga qaxaan xaafadaha ku dhow kawaanka urta ka soo baxda kawaankaasi iyagoo carabka ku dhuftay inay ka dhasheen urunkaasi dhiiga iyo uuskaasi halkaasi yaala tarixidoonayo waa sida ay hadalkooda u dhigeen dadkani oo iyagoo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid aha sida tan caafimaadka kuuka waxbarashada ku xigta hadii meesha caafimaad lagu waayo waxbarasho ma jirto nololnimo ma jirto wala qoriyaamaya marka waxaan ka codsanaynaa maamulka Togwajale inta hoos yimaad ee dawladda inay meesha dhibaataheedu way saameysay magaalada Gabigeed masaajidii baa lagu tukan waayay guriyihii baa lagu qadayn kari waayay aydii iyo doof waraabaha isriyanaya isla jiray urteedii baa ay ka gaadhay bakhaarradii oo dhan baa imka daqsigu alaabti ka nijaasay midowga wada yaabta xabad qalin hadaad ka iibsato tukaan isagoo oo ay ku maran tahay daqsiga xaarkiisa ayaad arkaysaa dib baa loo maydhaa iska daam guruubadii sunnaa meherada way baaba'een marka waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh iyo maamulka magaalada Togwajale waxa dhibaataha ee dadkooda haysta inay arkaan uga jeheeyaan dibadda uga saaraan waayo aydii way waaratay intaasoo qof bay yoom walba cunta dhakhtarka jigsigaad baa ka faa'iideystay kuwa ku dhinta iyo kuwa dalqa lagu badbaadiyaba way leedahay marka waxa weeyaan hawsha hadii aan wax la wada qaban magaaladu waxa weeyaan waa dekad qalalan waa wajigi Soomaaliland ee Itoobiya la iska wajahayay meeshu waxay u baahan tahay nadaafad iyo shaqo diyaar ah oo ay dawladdu u sameeyso iyo maamulka Togwajale odayaasha dhammaan wax garadka iyo moogtahay wixii moogtahay ay khusayso nolosha aadamaha marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan dadweynaha iyo dawladda in meeshaasi looga jiheeyo magaalada Togwajale caafimaad daradeeda iyo dhibka ka haysta nin waliba waxaan ka hadlayaa maanta maxay ahayd dhibaatada naga haysata xiriidhigta anagoo xaafadaha xiriidhigta u dhow marka waxa weeyaan nadaafad daro caafimaad daro aydiyo ku farabadatay maxay dhiigii uuski oo nidaam loo yeelaynin dhiigii oo dhulka qalqulqulaya guryahayaga mararka qaar kood ma gallo qarmuun daraadi ma gallo waanu ka dareernaa taasoo la moodo inay maxay ahayd jiir ku baqtiyaan baxaarba dhex yaala qofka noo yimaada meel kale noo yimaada banaanada fadhiisina qarmuun daraadi marka waxaanu doonaynaa insha Allah billahi kariim si degdeg ah wax noo qabto dhibaatada haysata waayo imka roobaba daayo wax laga yaabo inuu daacunba ka dilaaco meeshan taqsigan green fallet ka xiriidhigta ka soo kaca taas buu noogu imanaya marka waxaan ku cid nala hadlaysana ma jirto wana laga dhagaadagay dhowr jeerna waanu ka hadalay ilaa 40 guri ayay dhibaatadaasi saameysay saarab musaarika ay sheegayso dhan waa dhab xiriidhigta dhibaato culus baan ku qabnaa ciyaaladii way dhamayso cunaysaa imka haatan ciyaal lagu maqayay haba jirtay Itoobiya la geeyay oo dawadoodii waliba dhowr meelood laga waayay meeshii saddexaad imka looga helay caga juglay baan haysata dhibaatada inta leeg hadaan hadallo guryaheegii habeenkaas kartu noogu soo galaysa albaabadii gudaha naloo geeyay xukuumadda Axmed Siyaaya waxaan ka codsanaynaa caga juglaynta iyo dhibaatada inta leegan haysata nuu sheegaynaa wala xukuumadda iyo sharafta lahayd aanu dooranay wada xumada iyo dhibaatada haysata inay wax nooga qabato isku soo wada duuba markii ugu horeysay dadkani ay walaac xooggan ka muujiyaan nadaafad xumada ka jirta kawaanka xoolaha balse ilaa iyo hadda maamulka dawladda hoose degmadaasi Togwajale ayaan dheg jalad u siinin cabashada ka soo yeeraysa dadkani waana dhaliilaha baahsan ee dul hoganaya maamulkani ragaadiyay magaalada Togwajale waa Maxamed Tuba hawlaha Gabigeed